waxa muuqda hadda waxa weeye maxay ahaanay doorasho hal dhinac madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isaguna mucaaradka maanta kamid isagna banaan ku fadhiya in meesha ayna doorasho ka dhacaynin waxa weeye doorasho ayna ka dhacaynin danaysa ay ka dhacayso gabigooga Xasan Sheekh Maxamuud ka socdaan baa la yiraahdaa wadada uu isagu soo sameeyay lacag uu ku bixinayo dhabarka uu soo taabtay oonan ahayn siyaasiin ay dhab ka tahay inay doorasho gole deegaan galaan ama doorasho ay dalka Soomaaliyeed ka galaan si guud horta waxaan uga hadlayaa doorashada golaha deegaanka ee dawladdu ay tiri waan qabanaynaa iyo nooc ay wax u socdaan iyo siday doorasho xalaal ay ku dhici karto iyo qaabka hadda aan arkayna wax u socdaan iyo ma u dhici kartaas wixii ay dadka Soomaaliyeed ka rajo qabeen ay ahayd in doorasho xalaal ay dhacdo taasaan horta inaan ka hadlo qurux badan marka anigu ka shakhsi ahaan markii ay dawladdu tiri doorasho golayaal deegaan ma qabanaynaa ama doorasho qof iyo cod aan dalka ka qabanaynaa waxaan aad ugu rajo weynaa maadaama oo dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer dawlad la'aan soo mareen burbur soo mareen dalalka caalamka ay kala aadeen dawladaha doorashooyinka ka dhacaan dimuqraadiga ay dad badan oo Soomaaliyeed soo maray ay dawladda ku jiraan doorasho tii adduunka ka dhacaysay dawladaha adduunka horumaray ama dawladaha dadka nabadda raadinaya dhibaatooyinka inay ka gudbaan iyo caqabadaha raba dalalkooda ay ka dhici jireen tulamida in dalka laga qabto oo ay ka dhici doontaan rajaynay laakiin say fiifaalaha hadda socda ma muuqato waxa muuqda hadda waxa weeye maxay ahaanay doorasho hal dhinac waxaan sugaynay Xasan Sheekh Maxamuud waan ognahay wuxuu ka soo dhex baxay oo maanta kursiga ku fadhiya maxay ahaanay qolo looran jiray maxay ahaanay samata bixin qaran ama badbaado qaran looran jiray ragii badbaado qaran maanta gabigooga Xasan Maahina waa wada mucaarad banaanka fadhiyaan hal nin oo urur samaystay ama xisbi samaysto maanta doorashada qaybkiina ma jiraan madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isaguna mucaaradka maanta kamid isagna banaan ku fadhiya dalkana doorasho golayaal deegaan baa ka dhacaysa la leeyahay taasi waxay ku tusaysaa in meesha ayna doorasho ka dhacaynin waxa weeye doorasho ayna ka dhacaynin danaysa ay ka dhacayso haddii ay dalkan doorasho xalaal inay ka dhacdo la rabo oo dalka Soomaaliyeedna dan u ah dadkana dan u ah dawladnimada dan u ah waxa dawladda laga rabay inay mucaaradka iskugu yeedho la wada fadhiisto laga heshiiyo doorashada dhacaysa golaha deegaanka nooca ay noqonayso siday u qabsoomi karto guddi lagu kalsoon yahay wax lagu wada kalsoon yahay in marka hore la diyaariyo iyo ka horeysay doorashada dhicitaankeega tii maanta ma hayno ma soo muuqato hadda dadku waxay yiraahdaan ama se dadka arrimahan u dhundalool waxayba sheegaanba dadka hadda Xasan la tartamaya ee la sheegay inkastoo dadka shacabka Soomaaliyeed ayna garanaynin ururada ay hadda golayaasha deegaanka u saraxan gabigooga Xasan Sheekh Maxamuud ka socdaan baa la yiraahdaa wadada uu isagu soo sameeyay lacag uu ku bixinayo dhabarka uu soo taabtay oonan ahayn siyaasiin ay dhab ka tahay inay doorasho gole deegaan galaan ama doorasho ay dalka Soomaaliyeed ka galaan marka taasi shacabkii Soomaaliyeed iyo dawladnimadiiba dadkii waxay ku beertay walaac marka anagu waxaan soo jeedin lahayn haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay waliba dadka doorashooyinka wax ka fahansanay danaynaya haddaan nahay in dawladdu ay dib iskugu noqoto doorashada hadda socotay doorasho maaha dadkii Soomaaliyeed u dhan yahay siyaasiyiintii u dhan yihiin doorasho lagu wada qanacsan yahayna maaha waxaan ku talin lahayn in maxay ahaydaan waxa weeye saamileydii siyaasadda doorashada laga qayb geliyo doorasho heshiis lagu yahay wada ogolo dalka laga qabto taasuu dalkani harow ugu socon karaa haddii laakiinse waxa weeye doorasho dhinaca la qabsado waxay noqon doontaa doorasho la isku khilaafo kadibna waxay dhibaato u keeni in maxay ahaydaan harow socodkii dalka aw dib u dhac ku yimaado oo siyaasaddu ay dib u dhac ku yimaado oo harow markii aw dib u dhac ku yimaado amnigii dib u dhac ku yimaado harow markii dawladnimada oo dhan aw dib u dhac ku yimaado markasta waxaan ku talin lahayn inaan soo jeedinaynaa ka shacab ahaan Soomaaliyeed in intaanan doorasho la gelin wada hadal ka horeeyo wax lagu heshiiyo وهاجاج موضوع واسف عن بعشر رحضي هذان موضوع كبحثن كويدين دوان مدحويني هوري الصومالي يا دلك دب وصل لابتي فرماتشو waxaa sheegay dalkeen macaaluulay ka jidho saddexda waqti hal waqti dadka Soomaaliyeed ay cunaan bal xilligan iyo hadalka farmaajo markaad isku eegtid magaalada Muqdisho gobolka Banaadir maxaa ku soo ka waran araadaada ku aadan halkaas ma jidhaabay kula inii aanu 10 sano ugu dambeysay horta magaalada Muqdisho aan ku noolaa 10 sano ee soo joogay maanta magaalada Muqdisho xaaladda ku jirto ama waqti xaadirkan xaaladda lagu jiro bisaaradda iyo culayska magaalada ka jira horay ma soo arag waxyaabaha uu madaxweynuhu taabtayna waxba ka jira oo waxa weeye culayska maanta jira waxba dhabka kullay taasina waxa laga bixi karaa in dawladda hadda joogtay ay ka shaqayso sidii waxa weeye shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada loo waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxa weeye loogu dadaali lahaa in waxa yar dawladdu ay hayso
shacabka lagu filaysiyo oo musuqmaasuqa laga ilaaliyo haddii ay taasi dhacdo waxa weeye dalkeenu dhibaatooyin way ka badbaadayaa oo waxyaabaha dhibaatooyinka bini'aadminimo hadda la sheegayo dee waxbaa laga qaban karaa laakiinse haddii waxa aan looga soo jeedin oo sida hadda la isku bayaadaynayo wasiirkii maaliyadda oo keliya intaasi waxa weeye gurigiisa ku baxdaa la leeyahay dee inta xukunka joogtun baa noolaan inta kalena waa iska baabi dhibaato bini'aadminimona weligeedba way iska taagnaani taasi waa intaas ta kale maxay ahayd aanay dalkeennu dee waa dal marka horeba iska waxa weeye u nuglaa dhibaatooyinka iyo xaaladaha bini'aadminimo haddana waxaad moodaaba inay abaarana ugu biireen marka mar walba waxaasoo isbiirsaday waxa lagaga gudbi karaa hadba dawladda joogti inay ku dadaasho inay waxa weeye midnimada dalka ay ka shaqayso maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wada shaqeeyaan oo iskaashadaan oo waxa weeye wixii dalka ka soo baxay ee la helo si wada jira wax loogu qabto intaa haddii la sameeyo dalkeenu caqabad kasta uu ka gudbi laakiinse haddii sida maanta loo arkayna maamul goboleedyadii iyo dawladdii dhexe iyo siyaasiyiintii inba meel u taagan yihiin loo taagnaado doorashana way dhacaysaa la yidhaahdo dhaqaalihii waddankana meelo kale lagu khasaariyo waxaan ku idhi dalkeennu hore u socon maayo halkaasun baa la taagnaani caqabadaasina way nahaysan